haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, af soomaaliga waxaa baryahan ku soo kordhaya eray ama erayo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn, markoodii horena si sibiq ah ku soo galay. kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa. sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda, inkastoo bulshada inteeda badani ay caynkaa u taqaan, haddana erey hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin. waa ay fafaalaha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan. soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsannana badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah. tusaale ahaan, u fiirso oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. marar badan waxaynu maqalaa wartabiye odhanaya, wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha. weerahaas iyo kuwo lamid ah ayaynu maalin walba warbaahinta soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah. waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. marka hore, asal ahaan shaac waa erey af soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. qaar kale oo ay isku isid yihiin ayuu la mid yahay. xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi badhina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaaca ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. aan sii caddeeyo, aan tusaale ku sii muujiye laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan. markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin, labadooda oo keliyana uu ku ekaado. hase ahaatee, kol dambe ayuu baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aanu ogayn la wada maqaliyo meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. warbaahinta af soomaaliga ku hadasha dhallinyarada wax ka tabisaa markay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaare ah ka sheegay. ha yeeshee af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale wartabiyihii hore siduu weedhaa u odhan jiray oo ahayd, wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. dulucdu waxay tahay shaac wax lagama qaadee waxbaa laga dhigaa. qaladka hirgalay ama indhaheenna oo shana baryahan hirgalaya af soomaaliga kuma yara. maalin aan fogeyn ayaan dhagaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee soomaaliya ka dhex shaqaysta. qofkii iidhehda sheegayay ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey, halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada. ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidhehda ugu horreeya, kaasoo aan halku dhig ahayne halku dheg ah. oo halku dhagow maxaa tahay? waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. sidoo kale maansada ayaa halku dheg yeelata. umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dheg isaga iyo qofkii tiriyeba muddo dheer lagu xusuusto.
waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. halkudhegga sida gabayga weyn loogu raadsho aan tusaaleeyo. nin gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tiri jiray. markaas buu ku jawaabaa hadda gabayada salaan ee diradiraha ahi hal ma ahayne kanaad iga doonaysaa waa kee wax ma ka garanaysaa halkudheg ah. kii rabay gabayga oo dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haahoo waa gabaygii ay ku jirtay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye dhaqashiya marbay kaa yihiin dheragu xaaraane dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele dhadhan malaha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dhirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. halkudheggaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay mayn kii ku magacownaa salaanna uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo xaajo dumar ay isku qoonsadeen. gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaas dabada u qabtaa. 1906 ama 7 daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelingaale iyo xeebta iligeedna isku ballaarisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen in sayid maxamed iyo taliskiisaba ay afgembiyaan. waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn. tashigoodiisa kuma ay guulaysane inta laga warheeray baa laga hor joogsaday waxaana laga dhigay wax la dilay wax la dayriyey iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey. markaas kadib ayuu wadaadkii arrintaa ka mariyey dhowr gabay oo tiiraanyo iyo filan waa miirana. halkudhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin waxaase iila cudoon 3 meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walba uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba'an wax uga mareegay. waa 3 meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxir ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu rebi. dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane isaguna waa meelis halkudheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ku socda. waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay gabyaagii siday maanta ku sugan tahay in badan uga digay. waa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cabdilaahi suldaan tima caddana ku magac dheeraa. aan soo koobe wuxuu shaaca ka qaaday waa oraah laaxina oo indhawaalaba ay warbaahinta soomaalidu sidaas u adeegsanaysay. waa qalad hirgalay oo waan ogahay sawse ma wanaagsana inaynu ku beddelanno tu kale oo ka hagaagsan macnihii la rabayna loo xambaarin karo. waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu shaaca ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday. sidoo kalena halkudhig erey jira ma ahee waxaa jira uun halkudheg. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.